kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo mowduuca Valentino Day oo 14 February oo sanad waliba daafaha caalamka oo idin looga dabaaldego. Maxay tahay sababta ka dambaysa in 14 February oo kaliya loo dabaaldego jacaylka? Arrinkaasi waxay xambaarsan tahay qisad dheer oo muddo dhowr boqol oo sano ka soo wareegtay. kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janaalka King 252 ku soo dhawaada. asxaabta cusub ee iminka nagu soo biirta waxaan leenahay soo dhawaada subscribe inoo saar asxaabta horena sidoo kale waad ku mahadsantihiin. King 252 haddaba dhegaystow sheekada waxay ku bilaabanaysaa sida tan. guud ahaan dunida oo idil waxay laamanayaasha caalamka ay u dabaaldegaan maalinta munaasabadda loogu magac daray Valentino Day oo ah 14 bisha February oo sanad waliba ay ku jirto. maalintani waxay bilaabatay xilligii boqortooyadii hore ee Roomaanka. waagaasi waxaa boqorka Roomaanka xukumi jiray Claudio boqor lagu magacaabo oo na kala fogeyn jiray ragga iyo dumarka ama gabdhaha iyo wiilasha guurkooda iyo kulankooda. gabi ahaanba waa uu diidanaa wuxuuna ogolaaday oo kaliya in habeenka dabaaldega boqortooyadiisa in gabadh waliba ay warqad ku qorto magaceeda ayna geliso sanduuq yar, sidaasina wiil waliba uu ku raadsado warqadaasi magaca uga soo baxa gabadha ay tahay oo kaliya. xilligaasi ayaa damaashaad iyo weliba is-arag dhanka xafladda gudaheeda inta lagu guda jiro ay wada samayn jireen. halkaasi ayaa si nasiib leh habeenkaasi qofkii calool gala uu ku dhalan jiray. sanadka intiisa kale maysan kulmi jirin ilaa laga gaadho dabaaldega sanadka kale ee boqortooyada. xilligaasi oo sidoo kale cid iyo nasiibkeeda ciddii uu ku soo beego mar kalena sanduuqyadii la gelin jiray warqadaha, waxauna qof walba la kulmi jiray qofkii uu sanadkii hore la kulmay qof ka duwan. sababta uu boqorka sidaasi u samayn jiray ayaa waxay ahayd waxa uu geli jiray dagaal fara badan, waxaanu u baahnaa askar rag u badan oo intooda badanna u dagaalama si boqortooyadiisu ay ugu nabad gasho. sidaa daraaddeed waxa uu rumaysnaa haddii uu guurka uu fasaxo raggu iyo dumarkana ay isguursadaan halkaasi ay ka dhalanayso jacayl, carruur iyo reer, qofkuna uu yahay qof mashquul fara badan. kadibna waxaa ku yaraanaya askartii u dagaalamaysay boqorka ee difaacaya xukuumaddiisa. laakiinse habkani uu ku mamnuucay guurka ayuu u fahmay in xal uun u yahay in nin kasta uu horay uu ka geli karo dagaalka maadaama aysan jirin wax famila ay ka dambeeya ama uu ka damqanayo. muddo kadib waxaa soo baxay wadaad lagu magacaabi jiray Valentino la yiraahdo. si qarsoodiina wuxuu isugu guurin jiray gabdhaha iyo wiilasha Kiristanka ah. muddo kadib ninkaasi waa la xidhay, waxaana la sheegay in jirdil iyo ciqaab xooggan loogu geystay jeelka dhexdiisa awgeed uu u geeriyooday 14 February. wadaadkii diinta Kiristanka ahaa ee dadka intooda badan xaaladiisa la socday ayaa waxay u yaqaaneen shahiidkii jacaylka. baadarigii Bob Galasios ee diinta Kiristanka ayaa sanadkii 496 miilaadiga wuxuu si toos ah u aqoonsaday in la xuso maalinta 14 February ee sanad waliba ay tahay maalinta jacaylka. haddaba dunida oo idil waxay u dabaaldegtaa 14 February maalinta Valentino Day, balse dadka badankooda waxay u dabaaldegaan maalin waliba oo 14 February ah. maalintaasi dadka kala duwan ee diimaha haysta sida diinta Islaamka ma yaqaanaan sababta ay ugu dabaaldegayaan. baraha bulshada ayaa waxaad arkaysaa in la isku dhaafsanayo sawirro, fiyooro, ubaxyo iyo sidoo kale xaflado ay fanaaniintu ay qabanayaan iyaga oo ugu dabaaldegaya Valentino Day. balse micnaha ka dambeeya iyo fikirka ka dambeeya iyo halka Valentino arrinkiisu uu ku biishubanayo dadka intooda badani daah ayaa ka saaran. Soomaalida ayaa inteeda badan ka mid ah dadka u dabaaldega, balse iminka waxaan rajaynayaa in qof waliba uu fahmay Valentino Day micnaheeda iyo halka ay ka soo bilaabatay.